midnimada iyo wada socodka Soomaalida waxay u baahan tahay in lagu dhiirado runta in la sheego oo cid walba runta loo sheego cidna aan laga wajiga bixin bay u baahan tahay waxa weeye midnimadaas waxay ku imanaysaa cadaalad in la helo cadaalad siyaasadeed mid saami qaybsi mid resource mid dhaqaale in la helo ayay ku imanaysaa kuba imanayso hadallo iyo wax loo baahan yahay waa la bilaabaan isleenahay laakiin qaab dhismeedyada inoo dhisan iyo sidaynu hayo suluug badan baa ka jira doodo la furi doona jira oo telefishinka laga furi doono oo baarlamaanka laga furi doono oo laga hadli doono waxyaalaha qaarkood anaga xallin doona haddaan joogno waxyaalaha qaarkoodna ciddii naga dambaysa ee ilaahay u qoray meesha timaadeen mas'uuliyadda qaada xallin doonta sida in loo ogaado laakiin deganaanshaha wada socodka dadka halkan isugu imanaya iyo kuwa banaanka jooga ehelnimada walaalnimada wixii kala dilaya dadka in laga ilaaliyo xaq jir qabiil meel kasta uu ku jira qabiil aan lahayn ma jiro sabab marka kuwa maxaa maxay yiraahdaan u niraahno qabyaalista to waxaad wadaa xaq jir qabiil bad wadaa u leenahay kuwa kalena aanu u reedin meesha ma taalo annagana cid uun qabiil bad wadaadna la waayi maayo waa siyaasad wixii adiga ugu horreey kana waxaan loo leeyahay xor hal ahaado waa in la doodo oo cadayn iyo dhaqanka siyaasadda meel adduunka aan lagu murmayn Mareykan iyo Ingiriis iyo Kenya iyo adduunka ma jirtee in si xor loo murmo loo doodo weey kolka dambana siyaasadda tartan bay gashaa way tagtaa marka in qalalaase amni iyo dhibaato iyo wax maartay dib inuu celinaya aan la gelin kaliya ma laga hadlaya cid loo haystaa caaw oo reer baad la hadlaysaa iyo heel baad la xidhiidha iyo ku dibad joogaad la xidhiidha ma jirto la xidhiidha hadaa dooni amniga uu ilaali dadka uu wixii dhibaato u geysanaya maatida ka shaqeyn cid la xidhiidha adaa xor ah cid ku ilaalin karta ma jirto qorkaaga gasho wax imanayo dhibaatooyin ma jirto shalay wixii halgankii aanu qaabkii istiraatiijiyada aanu marnay maanta ma shaqeynayso kuwa ku logoosan meelaha ku galay sawraduna way fahandara haysan qabaan fahandaro context has changed wax aan soconayn xaaladaan soconayn lama galo waaga dadku waxay rabeen wax hadlay rabeen sababtoo ah mayna hadli kareen halkan dadka jooga ma hadli kareen ka dibadda jooga ma hadli kareen marka cid hadasho dhiirata loo baahnaa waxa kale oo jiray dulmi baahsan oo muuqda oo la arko hebel baa la dilay hebel baa la qabtay baa la lahaa dad la darbaaxaya salaadii la dilay taagna haddii dulmigii meesha uuna ka jirin isla markaana xorriyaddii hadalka ay jirto wadadii shalay wada la mid ah hadana wax ku qabsanaya waa jaahilnimo inayna shaqeynayna waa arki doonaan tuuladu ku dhashay qof 10 qof aan shir jiraad u qaban karin tay intuu xidho meel hadduu fadhiisto yiraahdo waxaan ka soo hadlayaa telefishin kama dhigayo shakhsiyad una lahayn u sameyn maayo marka taa in la ogaado muhiima argagax siyaasadeed ma jiro waxyaalaha hadda aan ka hadlayaa waxyaalaha dhalinyarada in loo aqli celiyo u baahan weeyaan wixii xisaabtan siyaasadeed baarlamaan baa u dhisan siyaasiyiin baa u dhisan odayaal baa u dhisan laakiin kaar qabiil iyo bugbug iyo isku dayasho shalay kuwii joogay halkay mareen baa la mari doonaa magaci lagu bilaabay laba sii marayo reer baa la hoos baa la soo jili baa loo kala bixi waa la iska qabsani reejijigaan wada joogeen oo isku layn guri bay gali marka waxyaalaha siyaasadda ah iyo waxyaalaha bulshada ee cabashooyinka in la kala saaro waa muhiim maalinka dhow taxabladan markii la qabanay anigu ma aanan ogeyn cidna ma diidana tan kaliya maaha waxaan ku leenahay waano baan ku leenahay hadii imika beel kale oo magaalada agteeda degan oo meelahan jira tiraashir baan qabsanaynaa dee la xiriin la eriyada toona maaha waano baa lagu leeyahay waxaan ma fiicna wax sheegun baa lagu leeyahay inta loo tago leeyahay waxaan xoog naba tarayo dadka baa arki liftigiisu hoolkan maalin walba reer ku shiro ee la soo fadhiisto dadka liftigiisa baa arki waxaan inuu wax wanaagsan ahay sabab loola dagaalamiyo hadii la rabo maanta dhan madaxweynaha laga dhaleeceeyo who cares asalka maadaama dhaqankii aan la baranay hore halkan ee madaxweynaha hebel u fiican yahay kan uu yahay yaan la oran inta soo kaco qofku raba halkan tuug baa tahay waxa baa tahayda yaa qabsanaya wax weydiinay marka saa in loo ogaado muhiima in uun falsafadii cabdiile iyo nidaamkii ahaa uu dawladnimadiisii iyo qaabkii xukun wixii uu inay si daba socoto oo kii hadlana la yiraahdo afka lagu dhufto wuu hadlayaa kii kalena la yiraahdo saas wiidi waxaas waa khalad waa in ka baxna saa adduunka la soo maamulo